inta badan dalka ama boqolkiiba 95 ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gutay waajibaadkiisii si buuxda gacantana ku haya dhammaan xuduudaha dalka. Hawlgallada ciidanka qaranku sameeyay waxaa ka mid ah waxaanu gaadhnay Boocane oo ah meelaha ugu shisheeya ee imika ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degan yahay oo gobolka Sool ka tirsan. Kulli waxaan halkan u imid in soo kontrolo ciidamada waana control caadi ah. aad bay ciidamada u wanaagsan yihiin, moral ahaan aad bay wanaagsan yihiin, hawl ahaan aad bay wanaagsan yihiin. waa ciidan hawshooda gutay qaranku uu xil saaray si fiican u gutay weey. waxaa ka mid ah hawlgallada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka sameeyay gobolka Sanaag oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadda degan yahay meesha la yiraahdo Yubi ama soonaha degmada Baran. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo kuma eeka waajibaadkiisa guud ee sugidda xuduudaha amniga oo kaliya wuxuu kala hawlgalaa ciidamada amniga ee dalka sida dabkii ka kacay suuqa Waaheen. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo la wadaagaya ciidamada amniga ee dalka wuxuu ka qaatay qayb libaax sida dabkii ka kacay buurta Daalo maxay ahayd baabiyay deegaankii buurta Daalo iyo dhirtii buurta Daalo intii badnayd. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qayb libaax ayuu ka qaatay xakamayntii dabka oo hawlgal badan ayuu ka sameeyay. sidoo kale ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qabashada maandooriyaha dalkeena sida qeyr caadiga u soo gelaya wuxuu kala hawlgalaa ciidamada booliiska sidii wax looga qaban lahaa. sanadkan 2022 haddii aan soo qaadano magaalada Laascaanood taliska ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Gooja Cadde waxaanu ku burburinay oo ciidanka qaranku gacantiisa ku burburiyay sooran qabtay 844 dhalo oo khamriga loo yaqaano dareyjiinka ah oo maxay ahayd ciidanka qaranku hawlgallada uu la fuliyay ciidanka booliiska oo maxkamadda ku xukuntay halka ciidanka qaranku gacantiisa ku jiriyay. hawlgallada diiwaangelinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka hawlgalay oo kala hawlgalay ciidamada maxay ahayd amniga ee dalka gobolada Sool iyo Sanaag iyo Togdheer. saddex gobolba ciidanka qaranku uu kala hawlgalay 53 goobood oo ka mid ah gobolada bari ayaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hawlgalay. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo waajibaadkiisii gudanaya oo ku sugan dhammaan xuduudaha taliyaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu amray in meel kasta oo la geeyo sanaaduuqda diiwaangelinta ee gobolka Sool iyo Sanaag bari inuu ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sugo amnigooda gacantaana ku haya waanu ka hawlgalay ciidanka qaranku. sidoo kale ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka qayb qaatay nabadeyntii beelaha walaalaha ee isku dhacay maxay ahaydeen dhexgalkoodii iyo maxay ahayd xakamayntoodii ayuu ka qayb qaatay oo kala qayb qaatay ciidanka nabadgelyada sida gobolka Sool iyo Sanaag oo labadaba ay ka dhaceen shaqaaqo sanadkan 2022. sidoo kale shaqaaqooyinka ka dhacay ama mudaharaadadii ka dhacay magaalooyinka sanadkii 2022 sida Hargeysa, Burco, Laascaanood, Ceerigaabo. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo la hawlgelaya ciidamada kale ee amniga wuxuu ka hawlgalay dhammaan goobaha. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu diyaar u yahay inuu mar walba isagoo gacanta ku ilaalinaya xuduudaha oo gacanta ku haya inuu wixii nabadayna iyo maxay ahayd wixii masiibooyin dabiici ah soo wajaha dadkiisa iyo dalkiisa inuu uga qayb qaato si buuxda. haddii hoggaanka tababarka waajibaadkiisa si yaroo kooban aan idinku iftiimiyo waxa weeye jaangooynta, qorsheynta, nidaaminta iyo sahaminta sidii aqoonta ciidanka kor loogu qaadi lahaa. aqoonta ciidanka qaranka kor loogu qaadi lahaa waxa weeye haddii aanu ka soo qaadano saraakiil xigeen, alifley iyo dabley dhammaantood in tababarka kor loogu qaado. laanno maxaa yeelay tababarku waa laf-dhabarta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. haddaan tababar jirin amba aan aqoon ciidanka aan la siinin way ku adkaanaysaa saraakiisha iyo sarkaal xigeenka iyo alifleyda iyo dableyda inay gutaan ama si habsami u gutaan waajibaadkooda qaranka, waajibaadkooda qarannimo
ama xilka ka saaran ciidanimadooda way ku adkaanaysaa. Marka had iyo jeeraale tababarku waxa lagu qaabeyn karaa ama lagu jaagoyn karaa ama lagu macnayn karaa waa warshada soo saarta aqoonta iyo xirfadaha kala duwan ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo takhasusaadka. Haddii aynu yar guda galno takhasusaadka iyagu laba u qaybsamaa ama tababaradayadu tababaro dibadda dalka dibaddiisa aanu saraakiisha iyo sarkaal xigeenada iyo ciidanka aanu u dirno oo ay ku soo qaataan takhasusaad kala duwan iyo mid dalka gudihiisa ah. maanta waxa weeyaan waxaan joognaa kulliyadda tababarka ciidamada commandos ee dalka Itoobiya. maanta waxaan soo xiri doonaa koorsadii aan wadnay muddo 6 bilood ah. waxaana soo booqday wafdi sare oo ka yimid Jamhuuriyadda Somaliland oo koorska noo soo xiri doona. wafdigaas oo hogaaminayo gaashaanle sare hoggaan ku-xigeenka tababarka Axmed Caydiid Cumar iyo madaxa ku-xigeenka xiriirka dibadda gaashaanle sare Nimco Yuusuf Cismaan. haddii aan ka warbixiyo muddadii tababarku socday waxyaabihii aanu baranay waxaa ka mid ahaa jidhiska iyo saaridda miinada hubka noocyadiisa kala duwan, xidhidda iyo saaridda miinada tabta dagaalka, hawlgelidda maabka GPS-ka. haddaba waa maxay waajibka commandos? waxa weeyaan commandos ciidamada kale wuxuu kaga duwan yahay waa ciidan gaar ah oo mar walba aan la adeegsan laakiin mararka qaar la adeegsado. waajibka commandos waxaa ka mid ah soo afjaridda operation-nada muddo gaaban, la dagaalanka argagixisada, ilaalinta madaxda qaranka iyo safaaradaha, badbaadinta iyo samatabbixinta masiibooyinka, gacansiinta laamaha amniga, sugidda xuduudaha. waxay ciidanka commandos awood u leeyihiin inay ka dagaalamaan magaalooyinka, jiidaha, deegaanada heerkulkooda sarreeya, heerkulka qabow, xaalad kasta oo ciidan uu ka hawlgalo. commandos waa ciidan adkaysi u leh tababarkoodana qaatay inay xaalad kasta waajib kasta si degdeg uga jawaabaan. tababarkan aan soo qaadanay masuu qaybsamaa waxa weeyaan maanta waxaad arki doontaan wixii aan soo barannay. lambar 1 waxa weeyaan waxaad soo kormeeri doontaan show amba demonstrationkii laga diyaariyey wixii ay soo barteen. taasoo koowaad tahay marka koowaad iyagoo ciidankii baabuur ku socda xawaarihi 80 kilomitir orod ku fuulaya orodna kaga degaya. waa maxay sababta orodka ugu fuulayaan orodna kaga degayaan? waa ciidan jidgooyo loo galay oo isbadbaadinaya. qodobka labaad arki doontaa waxa weeyaan ciidan la dagaalamaya argagixiso iyagoo fooq 6 dabaq ah kaga soo boodaya xadhig iyagoo soo qabanaya markaa cadowgii ku jiray goobta. ta saddexaad waxa weeyaan isbadbaadinta ciidanka commandos waxa weeyaan in awood u yeeshaan inay iyagu qorisitay iyo aan qorisidanba dagaalami karaan. marka qodobka saddexaadna waxa weeyaan ka dagaalanka gacanta. qodobka afraad wuxuu noqon doonaa operation tactica oo la fulinayo iyagoo miinadii iyo PKM-kii iyo 7-kii iyo sniper-kii wuxuu la isticmaalayo operation sidiisa u dhammaystiran oo ay fulinayaan showga laga diyaariyana waynu soo mari doonaa. ciidanka commandos waa ciidan aad iyo aad looga tababaray xagga shiishka. haddaanu askariga commandos shiish lahayn waxa weeyaan askarigaasi uma qalma commandos. 100% ciidankan waxay awood u leeyihiin inay shiishka point-ka la doonayo barta uda kaga dhufan doonaan iyagoo isticmaalaya qoriga la sniper-ka, PKM-ka, AKM-ka iyo 7-ka. iyagana dul istaagi doonaa waxaanu soo barannay showgii laga diyaariyey. ciidankan commandos waa ciidan ku qalabaysan awoodooda iyo hubka. maaha ciidan mar walba la isticmaalo, waa ciidan la isticmaalo xaaladaha qaar si ay u soo afjaraan operation-nada waqtiga qaatay. hawlgalka la siiyo 100% muddo ku habboon iyo waqti aad u gaaban ayay ku soo afjaraan iyagoo isticmaalaya khibradooda waa aragnimada ay u leeyihiin dagaal. sidoo kale waa ciidan foojignaantoodu 100% aad u sarreyso. taliyaha ciidanka qaranku wuxuu 22 bishii 11aad 2022 uu furay koorsadii 5aad ee wax ka barata dugsiga tababarka Hargwaafi. annagoo fulinayna ujeedooyinka barnaamijka tababar ee ciidanka qaranka waxaanu siinay 160 saacadood oo ah tababar garoon si aan u ogaano awoodooda iyo kartidooda ay ku qaadan karaan tababarkan loo furay. tababarku wuxuu qaybsan yahay 2 galaas iyo garoon. garoonka waxaan ku barnaa jimicsigii jidhis ah iyo gaardi garoonka. sidoo kale galaaska waxaa lagu baraa maadooyinka ciidanka oo ka mid yihiin tabta dagaalka, topographiga, hubka fudud, sahanka ciidamada. sidoo kale waxaanu koorsooyin ama galaasyo dheeraada siinay qolooyinkii aan fursad waxbarasho oo hore helin, waxna qori karin waxna akhri karin, kuwaasoo aanu hadda galaasyo meel fiican maraya aqoontoodii waxna intooda badan ay qorayaan. halkan waxaa weeye kulliyadda Cabdullaahi Askar ee ciidamada qalabka sida
waxaanay ku qalabaysan tahay qalabkan casriga ah ee simulatorka kaasoo iyadoo horeba ciidamada iyo ay u ahaayeen ciidamada waaye araga oo nooc kastoo dagaalaba soo galay oo muddo dheer dagaal ku soo jiray oo waaye araga haddana waxaa noo soo kordhay nisbanaa ku soo kordhay qalabkan casriga ah ee aannu ku tababarno ciidamada kuwaasoo aannu gaadhsiinay ciidamadayada in askariga iyaga 60 xabbo haystaa uu aanay xabbad keli ka khasaarin oo uu ku dili karo 60 gaadhiga iyaguna hadduu 60 xabbo rido 60 gaadhi inuu ku dhufan karo qalabkan wuxuu u sahlayaa inuu askarigii markuu ugu bato 20 xabbo 30 xabbo 60 xabbo 100 xabbo ridi jiray inuu intuu doono halka ka rido 1,005 xabbo 2,000 waa arkaysan hadda sida ay ciidankii soo yaacayee ee simulator ka soo baxayey inaana xabad ka baxayn waa arkaysaan tiknikada markuu xabad keliya rido inuu yoolkii ku helayo sidaa awgeed ciidamadayada waxaannu ku tababarnay oy dhammaan ku tababaran yihiin ciidamada loo jooga jiidaha iyo halgoolayaasha iyo kuwa meel kasta waxaannu ku tababarnaa in 60 askari ay ka guulaystaan 600 oo askari waxaan ku sugannahay iminka kulliyadda amanduulka hoose ee GCSE command staff sanadkii 2022 waxyaabihii noo qabsan waxaa ka mid ahaa in la qaatay course macalinimo ah oo isugu jira 42 sarkaal oo isugu jiraan xidiglayaal iyo 2 xidiglayaal sidoo kale waxaa socdo iminka dhamaanaya next week GCSE course-ki oo ah course-ka amanduulka hoose labada course baa ka baxay sanadkan 2022 oo kulliyadda u qabsoomay iyadoo programkeedu hore u soo socday sidoo kale aniga 2 xidigley Farax Cabdiqaadir Warsame waxaa ka mid ahaa dadkii qaatay sanadkii 2022 GCSE-ga haddana qaatay tababarkii macallimiinta iminkana ka mid ah macallimiinta kulliyadda wax ka dhiga guud ahaan kulliyadda waxyaabaha lagu qaato waxaa ka mid ah 6 model oo isku xiga oo la baro saraakiisha juniorka oo ka hadlaya sarkaalku markuu xafiiska joogo waxyaabaha looga baahan yahay uu qabto sarkaalku markuu joogo training goob tababar waxyaabaha uu qabto looga baahan yahay iyo sarkaalku markuu field joogo ama operation joogo waxyaabaha looga baahan yahay inuu qabto kolka macnaheedu waxa weeyaan waa inta badan saraakiisha 3 goobood ma joogaan ama xafiis buu joogaa ama tababar buu joogaa ama operation buu joogaa waxa kale oo inta iyaduna dheer oo lagu daraa 4 model oo iyaguna gaar ah oo ah la yiraahdo maka ama sida ciidamadu ay ula shaqeeyaan laamaha kala dawladda haday tahay hay'adaha dawladda kala duwan haday tahay ciidamada booliska marka ay baahi timaado sida masiibooyinka qaranka oo kale ama ay doorashooyin waxyaabo noocaas ka jiraan oo wadanka booliska gacantiisa ay ka sareyso waanu caawinaa isagoo ciidanka missionkiisa military missionkiisa gaar ahaaneed ee dibadda uu hayo haddana gudaha haddii wax looga baahdo uu qabtaa kolka taana way qaateen saraakiishu